الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مسؤوليتك كدول عاوة نقل سوق قيب شيء مناسبة دان حلا وريبي داء وهو الرئيو قدومي كحيك أغل كسره ودان المولود مدحدة كلا دوان قلاياشا baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed golayaasha heer qaran heer gobol iyo heer baarlamaan dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo ay ka mid yihiin madaxdii iiga horreysay gobolka banaadir intii dalka joogtay duubabka gabdhaha madaxda ciidamada iyo dhammaan mas-uuliyiinta kala gedisan ee la midka ah ee aan ka gaari waayey inaan halkan ku xuso dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. mudanayaal iyo marweyn, waxaan marka hore fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan u tacsiyeeyo dadkii ku geeriyooday weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday xarunta gobolka banaadir oo uu ugu horeeyo guddoomiyihii hore ee gobolka injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso. waxaana leeyahay ilaahay ha u naxariisto, dhammaanteenna sabar iyo iimaan ha naga siiyo. waxaana idinka codsanayaa inaan hal daqiiqo wada istaagno, faatixadana u marno in ilaahay raxmadiisa siiyo. fariista walaalayaal mahadsanidin. sidoo kale waxaan idinka codsanayaa in aan dhammaanteen aan allaah caafimaad uga barino walaalaheennii ku dhaawacmay falkaas foosha xun. midda kale waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo howlwadeennadii soo abaabulay munaasabaddan oo uu ugu horeeyo kusimaha guddoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka. mudanayaal iyo marweyn, waxaan sidoo kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre oo ii gartay inaan qabto xilkan culus oo muhiimad weyn u leh dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan gobolka banaadir. waxaana ilaahay ka baryayaa in uu iga dhigo mid guta waajibaadka shaqo ee loo idmaday. mudanayaal iyo marweyn, sida aad og tihiin waxaana sugaya mas-uuliyad ballaaran oo xasaasi ah
guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka Banaadirba il gaara nugu eegayaan. mudanayaal iyo marweyn, waxaan hortiina ka caddaynayaa inaan ku dadaali doono inaan horay u sii wadno aan idhaahdo shaqooyinkii wanaagsanaa ee uu waday walaalkay injineer Cabdiraxmaan Yariisow iyo guud ahaan howlihii ay bilaabeen maamuladii isxigxigay ee gobolka soo maray, anigoo uga mahad celinaya qof walba kaalintii uu ka soo qaatay horumarka uu gobolku gaaray. barnaamijka 6 bilood waa amniga caasimadda. amniga caasimadda قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. mudanayaal iyo marweyn, maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada Muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo, shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan. waxaan aaminsanahay amniga sugiddiisu inay tahay shaqo noo wada taal shacab iyo dowladba, waxaana ku kalsoonahay haddii aan iskaashanno inaan ka adkaan doono cadowga. waa inaan dhammaanteen aanaan sugin cadowgu inuu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa. hase ahaatee taas beddelkeeda waa inaan qaadnaa tillaabo kasta oo aan uga hortagayno waxyeeladooda. waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karaankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga. waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho.
iyadoo weliba aan adkayn doono ammaanka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga. bilicda caasimadda. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduhuur shadra aliimaan. walaalayaal, sida aad og tihiin, nadaafadda iyo bilicda magaalo ay ummadi ku nooshahay waxay ka mid tahay qiimaha dadnimo ee ummaddaas, waxayna kaalin muhiim ah ka qaadataa caafimaadka iyo quruxda nolosha. sidaas darteed ayuu rasuulku salawaatullaahi calayhi wasallam waxa uu nadaafadda ku tilmaamay iimaanka barkiisa. sidoo kale, haddaanan nadaafadda iyo bilicda magaalada si weyn wax uga beddelin, caasimadeennu ma noqon karto mid la tartanta caasimadaha adduunka ee aan hiigsanayno in aan la mid noqonno. sidaa darteed waxaan xil gaara iska saaraynaa inaan laba laabno dadaalkii hore u socday ee lagu soo celinayay muuqaalka caasimadda, waxaana arrinkaas ku darsan doonaa qorshe maalmeedka gobolka. sidoo kale, waxaan dowladda iyo shacabka ugu baaqaynaa aniga iyo asxaabtayda intii la awoodo in qorshaha lagu daro dib u dhiska dhismayaasha burburay oo wax weyn u dhimay bilicda iyo quruxda magaalada. waxaan dayactir iyo dhismo aan ku samayn doonaa bullaacadaha qaada biyaha si loo baabi'iyo dhiiqada ka dhalata roobabka iyo nadaafad darrada u horseedi karta cudurro dilaaca. adeega dadweynaha. قال الله تعالى في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. inkastoo awoodda dhaqaale ee gobolku xadidan tahay, haddana waxaan dareensannahay in maamulka gobolka mas-uuliyad ka saaran tahay inuu dadweynaha gobolka banaadir gaarsiiyo adeega iyo baahiyaha aasaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, korontada iyo adeegyada kale ee uu bixiyo. waxaan cid kasta oo naga caawin karta la kaashanaynaa sare u qaadidda adeega iyo baahitirka shacabku naga sugayo. waxaan ku dadaali doonaa inaan dhammaan degmooyinka gobolka gaarsiino heer ay bixin karaan adeega looga baahan yahay iyo danaha joogtada ah ee gobolka uga xiran bulshada, taasoo mararka qaar ay dadku meelo fogfog uga yimaadaan. waxaana shacabka gobolka banaadir ka codsanaynaa in ay nala shaqeeyaan oo waajibka saaran gutaan si aan u gudanno mas-uuliyadda ay nooga fadhiyaan ay naga sugayaan macna. mashaariicda horumarinta. qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam in qaamat isaaca
وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. walaalayaal waxaad la socotaan in gobolka ay ka socdaan mashaariic horumarineed oo wax weyn ka beddelaya muuqaalka iyo horumarka caasimadda, sida dib u dhiska waddooyinka iyo xarumaha adeegga dadweynaha. sidaa darteed waxaan sii wadi doonnaa dhammaystirka baba lagu shubaa lag sidaa darteed waxaan sii wadi doonnaa dhammaystirka mashaariicdii horay u socotay. waxaan abuuri doonnaa mashaariic kale oo horumarineed, annagoo gacan siin doonna soona dhoweyn doonna cid kasta oo nagala qayb qaadanaysa horumarinta iyo dib u dhiska caasimadda. waxaan magaalada muqdisho xaafadaheeda ka hirgelin doonnaa waddooyin isugu jira laami iyo jaay si uu u sahlanaado isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka. cadaaladda ama garsoorka. qaala allahu tacaala in allaha ya'muru bilcadli walixsaan wa iitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkar walbagyi yacidukum lacallakum tadakkaruun. walaalayaal, sida aada og tihiin, dhibaatada Soomaaliya in badan arrimaha loo tiiriyo inay qayb ka tahay waxaa ka mida cadaalad darrada dhexdeenna ka dhacda. cadaaladdu waa shayga keliya ee ummad u horseeda inay nabad iyo isjacayl ku wada noolaadaan. magaalada muqdisho oo ah caasimadda qaranka Soomaaliyeed iyo magaalo ay ummadda Soomaaliyeed ku wada nool yihiin, waxay mar kale ku soo ceshan kartaa magacii iyo maamuuskii lagu yaqaanay in qof kasta oo Soomaali ah helo cadaaladda uu xaqa u leeyahay. waxaan hortiinna caawa ka caddaynayaa intaan madax ka ahay magaaladan inaanan aqbali doonin intii awooddayda ah in cadaalad darro iyo dulmi qof Soomaali ah lagula kaco, in qof Soomaali ah oo muwaadin ah oo muslim ah uu qof kale oo Soomaali ah si bareer ah hantidiisa u haysto, nuucay doonto ha ahaatee. ma aqbali doono. dhibaatooyinka iyo khilaafyada dhulka waxay magaalada caasimadda Muqdisho ku hayaan amni darro iyo sumcad xumo. waxaan aaminsannahay haddii cadaaladda laga shaqeeyo inay yaraanayaan khilaafyada hantida la isku haysto. sidaa darteed waxaan hay-adaha garsoorka ugu baaqayaa inay ku dadaalaan inay muwaadiniinta si cadaalad ah wax ugu kala xukumaan. sidoo kale hay-adaha sharci fulinta
waxaa laga rabaa inay kaalintooda ka qaataan hergelinta cadaaladda maamul wanaag. qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yatqanah. mudanayaal iyo marweyn, maamulku wuxuu ku salaysnaan doonaa mabaadi'da maamul wanaagga, annagoo la dagaalami doona muuqaalada kala duwan ee musuqmaasuqa. waxaa kale ee maamulka gobolka banaadir ku salaysnaan doonaa daahfurnaan, la xisaabtan iyo hufnaan. khitaamuhu misl. gabagabo. ugu dambeyntii waxaan halkan uga codsanayaa xukuumadda federaalka soomaaliya, dhammaan dadweynaha ku dhaqan gobolka banaadir iyo howlwadeennada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir in aan iska kaashanno sidii aan u dardargelin lahayn howlaha na horyaal. sidoo kale waxaan shacabka gobolka banaadir iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa in laga wada qayb qaato dib u xuraynta iyo xasilinta dalka, lana garab istaago dhammaan ciidamada kala duwan ee dalka oo wada dadaal ay dalka cadowga uga ciribtirayaan. wabillahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mahadsanidin walaalayaal dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan xillo wareegidda ah. waxaan uga mahad celinayaa sida adkaysiga, dulqaadka iyo niyad samida leh. runtii waxaan ognahay qaar badan oo naga mid a inay halkaan maqribka kusoo tukadeen, annaguna aan si aad ah usoo dib dhacnay. runtii ma jeclayn, laakiin adkaynta amniga xaruntan iyo waddooyinka loo soo marayo darteed xaqiijinteeda ayay ku dhacday inaan 10 fiidnimo ku dhowaano inaan idinsoo hor fadhiisano. balse waxbaan ka baran doonaa munaasabadaha kale ee yacni ku saabsan howlaha gobolkan ayaan isku dayi doonaa insha allah inaan wax badan ka bedelno. waxaan idin xasuusinayaa, waxaan samayn doonaa xafiis shacabka soomaaliyeed si dhow ay ugu soo gudbiyaan aaraadooda, si aan halkaas uga daalacanno waxa ay rabaan ugu qabanno. billahi tawfiiq. assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.